ninka la yiraahdo Xasan Sheekh wuxuu soo wacay goor maaragtay subax ah oo adiga 4 saac meelahaas ay ku abaarneed muddo dheer ay ahayd xogaa waa iska hilmaamay markaas wuxuu yiri waxaan rabaa niman ku soo diraya generaal ninkaas la kulan waxaan rabaa dhulkaas 100 lagu dhuftay 100 aan ka siinaya inaad ciidanka ku jira iyo dadka ku jirana ka fududaydo ka gacan siido ciidanka aan ku wareejiyay nimankaas saraakiisha aad ku gacan siido inaad maadaama xaafadana aad degan tahay odayna ka tahay ciidankana adigu maaragtay aad luq leedahay sidaan la socod maaragtay arintaas marka waxaan ku iri madaxweyne arintaas waa airportka qaranka wuxuu suurtagalna maaha anaguna waxba dhula kama rabo maaragtay anigu ma aan rabo guriyahaygii horwaa ku yaalay ayaa nabadgelyo aan ku daga waayay marka waxba guri kama rabo anoo 23 sano jira aan dhistay marka waxba kama rabee madaxweyne waxaan ka rabaa dhulkaas dadka hadaad ka kicinaysid ka kici oo si dadku maaragtay aysan airportka abni u noqdo laakiin meel dad la siiyo ay mudan tahay ma ahan talahaan dalkiyaana maaragtay dawladnimadii iyo wax fara badan oo howlaha ku yaale yaa kugu mashquuliyo maaragtay arintaas ku galiyay markaas uu yiri warkaas iska daayay warkaan aniga ku leeyahay ka maqashay hawshaas fil kabacdi waxa igu xigay in la weeraray weerarkii markii la weeraray niman ganacsataa ila hadlay iskaga tagaa la yiri gobolada dhaxaan maaragtay iska aaday diyaarad u fuulay markaan halkaas tagay adigu wax fara badan oo jiray oo dhacay kama warramayo Axmed Daaci iyo ninkii Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo weerarkoodii iyo halkaas markuu weeraray ayakii oo inta soo xirxiray Axmed Daaci uu yiri haad u soo dhaweeyay ninkaas diin ayaan idin weeraray oo wiisa idin kale idin ma jeedin oo ku yiri adigu dhibaato ma laha goboladii dhaxan tagay goboladii dhaxow haddana iga soo daba diray rag dagaalana ku soo qaaday nimankii Soomaal Shabeeco meesha joogay lugta la mariyay iyadoo muraadku uu yahay aniga in la dhibaateeyo kabacdi meeshii dagaal xuma ku dhacay dad far badan ku dhintay barakaca ka dhacay dhibaata meeshaas ka dhacday dhulkaas dhibaatada aan la saameyn